من بلد يعتمد على الصيد وبيع اللؤلؤ waddan uu dhaqaalihiisu ku tiirsanaa kalluumaysiga iskuna beddelay maanta xarun dhaqaale oo muhiim ah. Sannado yar gudahood wuxuu waddankani u beddelay dhibaatooyinkii haystay ee faqriga iyo tafaraaruqa, xasuuso iyo taariikho laga soo gudbay. اقتصاد الإمارات معجزة الشرق الأوسط المستمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين. maanta mawduuceena waxaan ku eegaynaa horumarka dhaqaalaha waddanka Imaaratka Carabta. Intaynaan muuqaalkeena bilaabin, waxaan si xushmad leh idinka codsanaynaa in aad muuqaalkan laygareysaan si uu u gaadho asxaab badan, kuna soo biirtaan kanaalkan. نشكركم من كل القلب. Imaaratka Carabtu waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan bariga dhexe marka laga yimaado waddanka Sacuudiga. Celceliska dhaqaalaha soo gala qofka muwaadinka ah sanadkii wuxuu kor u dhaafayaa $70,000. Haddaba horumarkan iyo barwaaqadan ay ku naaloonayaan xagee bay ka timi? هنا نكون قد وصلنا للعام 1968 حينها سعى الشيخ زايد آل نهيان لتوحيد مدن ساحلية متواضعة بهدف خلق اتحاد قوي وإعلانها دولة واحدة. bal haddii aynu taariikhda dib ugu noqono, wixii ka horreeyay 1971 dalkan waxa uu ahaa mid u kala qaybsan imaaradooyin iyo gobollo. gobol walbaana uu ahaa mid isagu gaar isku xukuma. 1968 Sheikh Zayed Al Nahyan waxa uu dadaal dheeri ah ku bixiyay sidii uu u mideyn lahaa goboladan ugana dhigi lahaa dowlad kaliya. waxa ayna riyadiisaasi u rumowday sanadku markuu ahaa 1971. sanad walba taariikhdu marka ay ku beegan tahay 2 bisha 12 dalkan waxaa laga xusaa maalin qaran. maalintaas oo ku beegan maalintii ay midoobeen dhamaan gobolada dalkaas. dalkan waxa uu ka kooban yahay 7 imaaradood ama 7 gobol oo isku tegay. waxa ayna kala yihiin Abu Dubai, Shaariqa, Ajmaan, Quweyn, Ra'sul Khayma iyo Fujairah. waddankan dhaqaalihiisa u badan waxa uu ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda ceeriin iyo gaaska dabiiciga ah. dalkan waxa kale oo uu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay dekedda caalamiga ah ee DP World oo ah xarun ganacsi oo muhiim ah. sidoo kale waddankan waxa uu ku jiraa waddamada qaabila dalxiisayaasha u badan ee ka kala yimaada daafaha adduunka, iyaga oo markaas ay dadku u soo booqanayaan si ay ugu dalxiisaan dhismayaasha cajiibka ah ee uu leeyahay dalkan, sida Burj Al Arab, Burj Khalifa iyo jasiiradda gacan ku samayska ah ee loo ekaysiiyey geedka timirta ah. dalkani waa dal si joogto ah u kobcaya, hadday noqoto dhinac dhaqaale, dhinac aqooneed iyo dhinac tiknoolajiyadeedba. muhiimadda u weyn ama casharka aynu ka baran karnaa wuxuu yahay: ma jirto adduunka ummad aan midaysnayn oo barwaaqo iyo badhaadhe la nool, ama ummad midaysan oo gaajo iyo duruufi ay leysay. intaas ayuu maanta muuqaalkeenu ku egyahay. intaynu kan ka ku xiga ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa maca salaama.